bal ka waran haddii inta lagu soo waco adigoo maqlaaya wiilkaada xabad madaxa looga dhifto isla markaasna aad maqasho qosolka iyo jeejeeska dilaagii wiilkaada nafta dhaafsiiyey. haddaba soo dhowaada daawadayaal qisadaas oo dhammaystiran muuqaalkeena ayaynu uga boga doonaaye. bishii Agoosto sanadkii 2012 baadiyaha magaalada Dhimisho waxaa ka dhacday in xubno ka tirsan ciidamadii daacadda u ahaa Bashaar al-Asad inay afduubteen wiil dhalinyaro Suuriyaan ah kaas oo ay u geysteen jirdil iyo garaac ilaa ay naftu ka bixi gaartay. wiilka ay soo afduubteen waxaa lagu magacaabayay Asad Maahir Cabbaas. adii hore ayuu gurigiisa ka baxay Maahir waxa uuna ku sii jeeday masaajidka, laakiinse waxaa si kadisa uga soo horbaxay gaariga waana lagu soo horbaakiyay. kadib waxaa ka soo degay ciidamada daacad u ah Bashaar al-Asad waa ay qabteen waana ay garaaceen saacado badan oo jirdil iyo garaac ah. ugu dambeystii waa ay ka joojiyeen. waxa uuna weydiiyey sababta ay u garaacayaan iyo waxa ay ka rabaan. waxa ayna ugu jawaabeen inuu ku soo qoro halkudhigay ka dhan ah Bashaar al-Asad barihiisa bulshada. intaas kadib garaacistii iyo jirdilka ay sii laba jibaareen waxa ayna garaacayeen ilaa ay naftu ka bixi gaarto. in muddo ah markii ay sidaas ku wadeen ayay waxay ku yiraahdeen dhageyso, laba wada ayaa ku banaan inaad isfuratid iyo inaad meesha ku nimatid. wuxuu ugu jawaabay diyaar ayaan u ahay inaan isfurtee, laakiin maxaan samaynayaa? waxayna kadib ku yiraahdeen waxaad wacaysaa waalidka si ay noo siiyaan madax furashada aan ka doonayno. Asad Maahir oo aad u oynaya wuxuu la soo baxay taleefankii waxa uuna ka wacay hooyadiis waxaana u sheegay in haddii uusan la soo gaarin lacagta laga rabo madax furashada ah in ay dili doonaan nimankan. laakiinse intii hooyadii aysan ku soo celin jawaabta wiilkeedii waxaa ka qaada taleefankii mid ka mid ah kooxihii manaxayaashaha ee wiilku afduubnaa. waxa uuna u sheegay in ay si degdeg ah u keento 1 milyan oo liirada dalka Suuriya ah haddii ay u baahan tahay nolosha wiilkeeda. hooyada Asad markii ay maqasho codka wiilkeeda iyo codka manaxayaasha ka dalbanaya lacagta waa ay qarraantay. codkii ayaana soo dhaafi waayay. intaa kadibna manaxihii ayaa la hadlay waxa uuna ku yiri dhageyso dhawaaqa wiilkaada oo dhimanaya. kadib qoroga ayuu cabaystay waxa uuna xabad madaxa uga dhiftay wiilkii. hooyadiis qadka ay ku jirtaa oo ay maqlaysaa dhimashada wiilkeeda. sidoo kale waxaa dhagaheeda ku dhacay qosolka iyo jeeska dilaagii wiilkeeda dilay. haddaba haddii aad nala soo gaartay ilaa iyo dhammaan aad ayaynu kugu mahad celinaynaa kana mid noqo asxaabta nagu xiran si ay ku soo gaaraan barnaamijyadeena. السلام عليكم.